السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي وحنا سعودي عشرة ديني أها حسابتا عشر كيني قدام به أن صدق نوحوها LCM أما لاوستي common multiple وأها دفسنا يراها أي وذاقان معناها دفسنا يراها أي وذاقان نبتر يوحي كبضا 10 كسبة صدقنا. ما أنت إن شاء الله تعالى عاوة حندقان دونا greatest common factor دفسنا وينها أي وذاقان. دفسنا وينها وحلا وضع وقيبها أوين أما فاليق أوين أي وذاقي كران نبتر يوحي كبضا. marka insha Allah taala maanta isku dirsaga doonaa dhusna weynaha ay wadaagaan oo loo soo gaabiyo GCF Greatest Common Factor. Waxaan soo qaadanay saddex tusaale anagoona badineen insha Allah taala 10 kalena waa ku dhigan doonaa oo 10 kan 10 ku xig waxaan tusaalooyin LCM ah iyo kuwa mataqaana greatest common factor ayaan mataqaana isku dhaxdareynaa si wada jir ah oo shaqeyn doona insha Allah taala. Tusaalaha noogu horeey waxa weeye hel dhufsana weynaha ay wadaagaan baaliyay 9 iyo 6 tirooyinka 9 iyo 6 dhufsana weynaha ay wadaagaan kuwaas baa heleynaa. Marka hore waxaan niri tirooyinka waa qoraysa marka hore halkaana 9 ku qor halkaana 6 ku qor markaas uu qodid ba waxa sameynaysa baan niri mid wal waxa raadinaysaa tirooyinka lagu dhufto sanaha kale 9 hal lagu dhufto intee weey waa hal sumaan kor hal baan qornaa hal dhufsan 9 dhufsan uu yahay sababta hadii hal 9 lagu dhufto waa 9 sumaan hal dhufsan uu yahay 2 3 haye 2 dhufsan uu tahay macna tirooyinka markii tiro lagu dhufto oo 9 keenaya loo baahan yahay lama rabo macna dhufsanayaasha dhan lama qoriyo 2 iyo 2 9 lagu dhufto 8 keenaysa lama rabo macna waxa rabaa tiro markii tiro lagu dhufto 9 keenaysa ma jidha hal oo kale uu keenaya sababtoo ah hal hadii lagu dhufto 9 waa intee waa 9 buu keenaya sax hada 2 markii tiro lagu dhufto oo 9 keenaysa ma jidha 2 oo lagu dhuftay tiradaas wax la mid tahay 9 ma jidha maay sadarta faraha ka qaadana waa ka tageynaa ay saddexna saddex uu jira sababtoo saddex lagu dhufto intee weeye waa 9 sadarteed saddexna wuxuu ka mid yahay maxaa dhufsanayaasha 9 buu ka mid yahay lambar 9 ka war lambar 9 dhufsanayaasha ma ka mid yahay sababtoo ah 9 oo lagu dhuftay hal intee weeye waa 9 sadarteed maxaa 9na ka mid yahay sababtoo hadii 9 hal lagu dhufto waa 9 hal lagu ka mid yahay oo hal lagu dhuftay 9 waa 9 haye saddex oo lagu dhuftay saddexna waa 9 sadarteed saddexdaas tiro ba waxay yihiin tirooyin markii tiro lagu dhufto keenaya 9 haye lambar 6na tiro markii lagu dhufto lambar 6 keenaysa loo baahan yahay marka kuwaad hal way wadaagaan tirooyinka dhan taa ogow sababtoo ah tirada hal waxa lagu dhufanaya mar walba isla tiradii baan soo baxaysa hal oo lagu dhuftay 6 waa 6 hal oo lagu dhuftay 8 waa 8 hal oo lagu dhuftay 5 waa 5 tirooyinka dhan macna taas way wadaagaan marka tiro markii hal lagu dhufto 6 keenaysa waa tiradee waa 6 sababtoo hal lagu dhuftay 6 inta weeye waa 6 weeye haye laba oo tiro lagu dhuftay oo keenaysa maxaa 6 ma jidha way jidha tiradee weeye laba oo lagu dhuftay 3 waa 6 markana labana way ku jidha sababtoo laba marka 3 lagu dhuftay intee weeye waxay keenaysaa 6 weeye sax weeye taasna ka tagna haye tiro haye laba maxana 3 mana waxda 3 markii tiro lagu dhufto oo keenaysa 6 ma jidha 3 oo lagu dhuftay sanaqe kan 3 oo lagu dhuftay laba waa intee waa 6 weeye marka darteed labana laba oo lagu dhuftay 3na waa 6 sadarteed 3na way keenaysaa sababtoo 3 markii laba lagu dhuftay intee weeye waa 6 marka wuxuu ka mid yahay dhufsanayaasha wuxuu ka mid yahay 6 uu ka mid yahay haye 4 ma ku jidha maay sababtoo 4 oo tiro lagu dhuftay 6 keenaysa miyaa jidha arday maay ma jidho haye 5 markii tiro lagu dhufto oo keenaysa 6 miyaa jidha maay ayadana ma jidho tirada ku xigta waxa weeye isla 6 ku xigta sababtoo 6 oo lagu dhufto hal intee weeye waxa weeye waa 6 sumaan marka tirooyinkaas saamka u baadhid ba waxa raadinaysaa dhufsanaha weyn ay wadaagaan marka tirada ay wadaagaan raadi marka hal way wadaagaan ka soco hal haywaad wadaagaan halkan laba ku jiro halkan laba kuma jiro laba ka tag marka laba wax micna noo keenayso
saddex ba halkan ku xig halkan saddex ku jira ha tiradan way wadaagaan sagaal ba halkan ku xig halkan lix ba taala marka tirada ugu weyn ee wadaagaan waa tirada weeye waa saddex weeye saddex weeye marka saddexdaas waxa xariiqad waxa dhahaysaa tirada saddex waxa dhahaysaa waa dhufsana weynaha waa dhufsana oo soo gaabina waa dhufsana weynaha macna waxa soo gaabina dhufsana weyni inay tahay dhufsana weyni waadana waxa soo aha dhufsane waadana waxa soo gaabina weynaha ay wadaagaan waa kala soo gaabina waa dhufsana weynaha ay wadaagaan sagaal iyo tirooyinkii wadaaga sagaal iyo lix ba wadaaga tada way waa saddex waa dhufsana weynaha ay wadaagaan sagaal iyo lix sidaas dhahayna sababta tirada ugu weyn ay wadaagaan way soo tiro kale ay wadaagaan ma jiro saas way su'aasha laba waxa weeye hel dhufsana weynaha ay wadaagaan 8 iyo 6 isa sidii baan yeelanaa maxaa dhahaynaa 8 ba qorna Soomaan iyo 10 macna 8na waxa qornaa tirooyinka markii tiro lagu dhufto 8 keenaya 10na waxa qornaa tirooyinka markii tiro laba tiro la isku dhufto oo 10 keenaya qoraynaa hal marka uu keenaya labadu hal way jira Soomaan soo dad hal tiro lagu dhufto 8 keenaysa tirada way arday waa hal lagu dhufto 8 waa 8 hal lagu dhuftay 10na waa 10 markaas hal ku jira meesha bilow sax weeye tiro markii 8 lagu dhufto tiro markii tiro lagu laba nagu xiisuma laba hadii tiro lagu dhufto 8 keenaysa ma jira arday waa tirade laba lagu dhuftay 4 waa 8 macna waxa loo baahan mar walba arday ogaada mar walba waxa loo baahan yahay saan oo kale laba oo lagu dhuftay tiro maqan oo keenaysa 8 ba loo baahan yahay mar walba sidaas weeye tira markii laba lagu dhufto 8 keenaysa waa tirada weeye 4 weeye sadarta halkan 4 ba qorana 4 wuxuu kamid yahay israda wuxuu kamid dhusanayaasha 8 buu kamid yahay saddex ma kamid tahay saddex oo lagu dhuftay tira maqan oo 8 keenaysa mi arday jidha maay sadarta hadii jirin faraha ka qaada ka boodisa waxa halkan 4 ba qor waa khalday waxaan laba ka dhig sababta laba ku xitaa laba oo lagu dhuftay 4 ba 8 keenaysa waa sax waxaan laba weeye 4 uu noo socda laakiin way kala horeeyaan saddex waa ka weyn 4 ma jidha 4 oo tiro lagu dhufto ee keenaysa 8 ma jidha waa labo sadartan 4na uu kamid yahay tiro ka 5 ma kamid tahay maay 5 oo tiro lagu dhufto 8 keenaysa ma jidho 6 ma kamid yahay maay sababta 6 oo lagu dhufto tiro 8 keenaysa ma jiro 7na kamid 7na kuma jidho tirada u dambaysa waa tirade waa 8 soo da 8 hadii lagu dhufto 8 waa intee weeye 8 oo lagu dhufto hal waa intee ka 8 oo lagu dhufto hal waa intee waa 8 hal oo lagu dhufto 8 waa 8 laba lagu dhufto 4 na waa 8 afar laba lagu dhufto waa 8 saa darteed dhufsanayaasha lambar 8 waa intaas weeye lambar 7 aan soo gudubno lambar hal uu kamid yahay markaas Soomaan soo dhaxna hal oo lagu dhufto 10 waa intee weeye waa 10 baan Soomaan hay tira kale tiradan laba kamar laba hadii tira lagu dhufto oo keenaysa 10 ma jira arday way jira waxa weeye waa laba oo lagu dhuftay 5 Soomaan laba oo lagu dhuftay 5 waa intee waa 10 saa darteed uu kamid yahay isagana maxaa kamid laba way kamid tahay saddex kuma jiro dhufsanayaasha 10 saddex oo tiro lagu dhufto oo 10 keenaysa ma jiro 4 kuma jiro 5 wuu ku jiraa sababna 5 oo laba lagu dhuftay intee weeye 5 oo laba lagu dhuftay waa 10 laba oo lagu dhuftay 5 wuu ku jiraa saa darteed labada tiro ku jiraan tiro kale oo 6 ma ku jira maay 7 maay 8 maay 9 maay sababta tirooyinka hadii tiro lagu dhufto 10 keenaysa ma jiro tirada u dambaysa waxa weeye waa 10kii sababta 10 oo hal lagu dhuftay waa intee 10 weeye marka sidaas weeye macnaha hadda si fiican aan ku dhaho macnaha ku fahansin karo waxa weeye mataqaana labadan tiro laba tiro way isku dhacayaan hal 10 marka lagu dhufto waa 10 hal marka lagu dhuftana waa 10 weeye laba marka lagu dhufto 5 waa 10 marka lagu dhufto labana waa 10 macnaha waxa la rabaa tirooyin markii la isku dhufto tirooyinka halkan yana labadan tiro hal 10 oo hal 10 laba lagu dhufto lama sheegiyo labadan tiro way isku dhufsan yihiin Soomaan macnaha waxa la rabaa tirada markii tiro lagu dhufto oo 10 keenaysa loo baahan yahay markasta tiro markii tiradan lagu dhufto 10 keenaysa loo baahan yahay saas laga wada macnaha soo faham marka waxa fiirina tirada ugu weyn ay wadaagaan halkan hal way wadaagaan laakiin waa yar yahay laba way wadaagaan laba ku jira xagan laba ku jira halkan 4 ba ku jira halkana
kuma jidho xagan 18 tirada weyn ee wadaagaan maxaa way ardayay waa labo sumahan tirada weyn ee wadaagaan sababtoo hal uu yar yahay laba ka weyn afarna ma wadaagaan shan ma wadaagaan sideedna ma wadaagaan 10 ma wadaagaan saa darteed tirada weyn ee wadaagaan waxa way waa labo marka muxuu noqonayaa waxay noqonaysaa lambar labo lambar labadaas qoraysa lambar labo waa dhufsane weynaha waa dhufsane waa soo gaaban dhac waa soo gaabina waa dhufsane waadan waxa soo gaabinay weynaha waada kan waxa soo gaabinay ay wadaagaan yaa wadaaga 8 iyo 6 qoro 8 iyo 10 bakooda 8 iyo 10 macallin lambar 8 iyo 10 dhufsane weynaha ay wadaagaan waa tirooyinkee waa tiradee waa laba weey tirada weyn ee wadaagaan macaan tirada weyn ee labada u qaybsami kara sanahan oo kale 8 oo loo qaybiyo laba dhahayna laba u qaybiyo hal 8 laba u qaybiyo 4 waa sax haye 10 oo loo qaybiyo laba fiiri laba u qaybiyo hal 10 laba u qaybina waa 5 waa jawaabtu sax way soo baxay su'aasha saddexaad weeye hel dhufsane weynaha ay wadaagaan 7 iyo 21 marka waxaan soo qabanaa 7 qorna Soomaali xagana waxa ku qoranaa 21 ku qoranaa 21 macna waxa qoranaa dhufsane weynaha ay wadaagi karaan 21 iyo 7 maxaa cilaaqada ka dhaxaya tirada u qaybsami kara labadooda u qaybsami kara samarka tahay waxa dhahaynaa mid kasta dhufsanayaasha tahayna marka hal way wadaagaan Soomaali hal way wadaagaan sababtoo hadii hal 7 lagu dhufto waa 7 hal 21 lagu dhufto waa 21 taas markaas ka dhax tirooyinku bay ka dhaxaysaa haye tiro waxa ay sheegtaa hadii 7 lagu dhufto laba ku dhacda laba lagu dhuftay tiro maqan 7 keen samiya jidha arday maay ma jidho ka soo caayadana saddex hadii tiro lagu dhufto 7 keen samiya jidha arday maay 4 ma jidho 5 ma jidho 6 ma jidho 7 ugu dambeeyay soo tiradan waa tiro mataqana imtixaan weeye tiro mataqana ay hay'adaha hal kaliyaas mataqana wax tiro markii dhufsanayaasha hal kaliya weeye hal iyo tiro ayada yar laftigeeda dhan Soomaalidu macna tiro iyo laftigeeda oo la isku dhuftay kaliya keenta marka tirada waxa la dhigi karaa tirooyinka prime-ki weeye marka prime numbers-ki weeye tirooyin imtixaan weeye macna tiro imtixaan waxa laga wadaa tiro ayada yar hal kaliya isku dhacaan wax kale oo tiro kale keenis ma jiro hada laakiin 8 oo kale 8 intaas oo number baa keenta hal baa keena laba keena afar baa keenta isla iyada baa keenta laakiin 7 hal iyo iyada kaliya weeye 7 hal lagu dhuftay waa 7 kaliya ama hal lagu dhuftay waa kaliya wax kale oo tiro kale oo keenta ma jiro kaas marka intaas kaliya weeye haye 21 laba ma keena laba oo tiro lagu dhufto 21 keenis ma jiro maay haye saddexna saddex uu keena saddex qor marka sababtoo saddex oo lagu dhufto 7 waa intee 21 macnaha wada saddex arday fiiri saddex oo lagu dhuftay 7 waa intee weeye waa 21 marka saddex uu keena ku jira haye 7 mu ku jira uu ku jira sababtoo 7 oo lagu dhuftay saddex waa intee 21 weeye sadartan 7 uu ku jira dhufsanayaashu wuxuu ka mid yahay 21 haye samarka tahay tirada ugu dambaysa 8 kuma jiro 9 ilaa laga gaar 21 wax tiro kale ku jira ma jiro aan ka ahayn hadda 21 macna waa 21 waa islaa'ili Soomaali islaa'ili 21 hal lagu dhigto 21 7 oo lagu dhigto 3 waa 21 3 oo lagu dhigto 7 waa 21 marka israayaashii tiradan waa isku sheegay hay marka waxaan fiirinaa lambarka ay wadaagaan kale hal way ka sameeyeen Soomaali hay saddexna kuma jiro diyaa waxa la rabaa arday ogaada mar walba tira halkan ku jira loo baahan yahay lama rabo 3 iyo 3 lama rabo tira halkan ku jira iyo halkan tira in isla hebal rabaa macna hay 3 kuma jiro halkan kore hay 7 way wadaagaan 7 halkan ku jira halkan ku jira 20 kuma wadaagaan maay halkan kuma jiro marka tirada weyn ay wadaagaan waa tirada weeye waa 7 weeye sababtoo halkan way ku jira halkan way ku jira marka maxaa dhahaysaa waxa dhahaysaa 7 waa dhufsane weynaha waa dhufsane xalaasa waa dhufsane weynaha ay wadaagaan tirooyinka wadaaga 7 iyo 21 waa wadaaga marka arday
sidaas way casharkeeni maanta intaas nagu egyahay insha Allah taala waxa sameysaan inaad mataqaanaa ku celcelisaan waa ku mataqaanaa practice badan aad ku sameysaan insha Allah taala waxaan filayaa inay noqon doono mid fudud casharkeeni nagu xigana waa LCM ka iyo casharkan bas ku dari doona waxa dhici kara ardayda qaarkood in aysan sharaxaadii qayb yar aysan fahmin sabab darteed casharka kale ayaa insha Allah taala ku dhameystiri doonaa